جامعة طه العالمية waxay ka mid tahay jaamacadaha ka howlgala dalkeena Soomaaliya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in wa ba'd. Dhammaanteen wareynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan uga mahadcelinaynaa intaanan oo hadafka aan u kulannay ay tahay dhiirigelinta ardaydeena qaaliga ah sharafta leh mustaqbalka dalka iyo diinta hogaamiyaashii ummadda hogaamiyaashii diinta hogaamiyaashii garsoorka hogaamiyaashii siyaasadda jaamacadan طه العالمية gaar ahaan faraceeda Gaalkacyo inaanu dhiirigelino aan isugu nimid إلهي نوافجي أيان مهد علينا ولله الحمد على ذلك وحكرا مهد علينا أخيارتا دولة قلمدو لبدا قولبا ومسؤولين تا رمتي وجه قودا وقت قودا قارقا ينوصو هري سي نولقي بسلام فرحة يقوشا جامعة طه العالمية فرعيدا Gaalkacyo ay u soo hoysay dalkeeda iyo ummadeeda iyo diinteeda si ay noo dhiirigeliyaan mas'uuliyiinta garabkeena soo istaagay waan u mahad celinaynaa Ilaahay ha barakeeyo oo jacala hadhihi aljalsa fi miizaan xasanaatihim waxa kale oo mahad celin golaha boodka faraca jaamacatu طه العالمية Gaalkacyo iyo dhammaan inta garab siisay siday ugu dhabar adeegeen maantana ay guranayaan farxadoodii iyo mirihii ay u soo dhabar adeegeen iyagana u mahad celinaynaa waxa kale oo si gaar ah aan ugu mahad celin Dr. Geedi oo runtii jaamacadan ka soo bilaabay min mustawa ta'siis إلى يوم التخريج والتخرج runtii isaguna waqtigiisa qaaliga ah ku bixiyay u dhabar adeegay ummadiisa iyo bulshadiisa isagana doctorka aan u mahad celinaynaa intaas ka bacdi walaalayaal jaamacatu طه العالمية waxay ka mid tahay jaamacadaha ka howlgala dalkeena Soomaaliya waxa lagu aasaasay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya 2012 taariikhda miilaadiga ah waxaana aasaasay dad mufakiriin iyo mashaayikh iyo aqoon-yahano isugu jira kana danqaday xaaladda dalka iyo ummaddu ay ku sugan yihiin gaar ahaan jaamacadda ahdaafta loo aasaasay waxaa ka mid ahaa runtii waxaa jiri jiray xalaqaadka cilmiga ayaa waxaa ka soo bixi jiray muallimiintii iyo mashaayikhdii ummadan badbaadiyay ayaa nooga soo bixi jiray waxaa dhacday markaa dadka ummadda badbaadin jiray dalkan Soomaaliya gaarsiiyay sharafta boqolkiiba boqol in maanta caalamka looga yaqaano inay yihiin dad muslimiin ah culimadii gaarsiisay ayaa culimada waxa la yiri waxa aad soo tabcayseen oo dhan waxba kama jiraan maadaama uusan dukumeenti lahayn arintaasi marka waxay noqotay arin xanuun badan waad ogtihiin maanta baasaboorka marka aad qaadanaysid culimo badanna way ku dhacday waxaa la yiri taatalka lagu qorayo sheeg baasaboorka wuxuu leeyahay waxaan ahay muallim dugsi wuxuu leeyahay waxaan ahay nin sheekh oo caalima taatalka ah la igu qoro in badan xafiisyada waxaanu la kulannay in la yiri maxaa cadeynay muddada inta la ignaad wax akhrinaysay nin sheekh caalima ah tahay muallim quraan soo saaray intaas oo dafacaad muallimiin ah soo saaray iyo arday maxaa cadeynay waa baasaboorkii ugu dhow waa su'aal aan jawaab lahayn إلا قفك إنه دوكمنت راد سدمويه
waxay noqotay markaa dadkii in la yiraahdo ha loogu qoro sheekhii mudariska ahaa ummaddan soo nooleeyey ummaddan u soo khidmeeyey in la yiraahdo waxaa lagugu qorahayaa xoogsade nin iska xamaasha ee xoogsada ah mucallimkii dalkan iyo ummaddan qur-aanka iyo diinta ku soo badbaadiyey waddankan gaarsiiyey boqolkiiba boqol inuu sharafta islaamka uu yeesho oo isagana la yidhi maadaama wax caddayna aadan u haysan khidmada intaa la eg waxaa lagugu qorahayaa xoogsade waad maqlayseen dhacdooyinka doctor geedi isaguna khayr badan allah siiyo ee gobolkan ka dhacay isaguna nala wadaagayay oo maxkamadihii in faraaqii ay doonayeen culimmadu inay buuxiyaan waa dadkii manhaajka irshaadka alfiyada iyo funuunta ugu culus oo bini aadamku uu barto maskaxdooda ilaahay uu ku shubay in la yidhi haddaadan dukumiinti haysanin diinka aad xambaarsan tahay iyo manhaajka aad xambaarsan tahay ummadda uguma khidmayn kartid arrintaas marka arrin xanuun badan ayay noqotay waana ahdaafta waxay ka mid tahay lagu aasaasay jaamacatu daaha alcaalamiya waxaan rajaynaynaa markaa dafcadan ugu horeysa ee hadda aanu ugu hambalyeynayno howlkan in faraaqaas ay buuxisay waan rajaynaynaa ninkii mucallimkii hadda waxaa ku jiray dafcadan hadda qalin jebinaysa nin sheekha oo hadda magaciisa uu iga lumay halkan laga sheegay macallin dugsi uu ahaa macallin dugsi ayuu ahaa haddana isagoo macallin dugsi ah oo khayrkii iyo nuurkii fidinaya ayuu wuxuu garawsaday berri in la dhihi karo dugsigan isaga tag haddaadan shahaado u haysanin ama dukumiinti aadan u haysanin marka waa runtii waa arrin aad loogu farxo faraaqaas in ay buuxiyaan ardaydeena sharafta leh waxaana rajaynaynaa shahaadada iyo dukumiintiga ay qaateen in ay ummadooda iyo bulshadooda ugu shaqeeyaan oo hamigooda ay kor u qaadaan oo hadafka iyo hamigu uusan noqonin in biil iyo muufo lagu raadsado laakiin uu noqdo horumarinta dalka iyo ummadda iyo diinta qof walibaahay inuu u niyeysto inuu dukumiintiga jaamacadda uu ka qaatay inuu ugu horumariyo